الله عليكم ورحمة وبركاته كل وناكسن ميل والبعض جوكتان halkani waa Dunia 24 ee ku soo dhawaada barnaamijkan kooban oo aan uga hadli doono warar la xiriira dhinaca caalamka si gaar ah waxaan barnaamijkan ugu faaqidi doonaa ama ugu falanqeynaynaa arrin ku saabsan wadanka Ruushka iyo wadanka Turkiga oo muddooyinkii ugu dambeeyay isku wanaagsanaa laakiin hadda aad moodo in xiriirka wanaagsan ee uu Erdogan doonayo in uu reer galbeedka la yeesho inuu saameyn ku yeelanayo madaxweyne Putin iyo wadankiisa tan iyo markii uu bilowday dagaalkii u dhaxeeyay wadamada Ukraine ama dagaalka u dhaxeeyay Ukraine iyo Ruushka madaxweynaha wadanka Turkiga Erdogan waxa uu ahaa ninka kali ah ee dhinac kasta kaga liibaanay dagaalkaasi isaga oo labada dhinacba xiriir wanaagsan la lahaa sidoo kale tan badeecado kala duwan oo wadankiisu inay ka baxaan aad u ugu baahnaa dhaqaale badanna uu ka soo galayay wadamadaas iyaga u kala gudbiyay uu ku gaaray guul diblomaasiyadeed oo labada dhinac ama dhinacyada uu marar kala duwan isku dayay in uu isu soo dhaweeyo si ay dhinacyadu uga wada hadlaan arrimahan waxaad la xasuustaa shirar dhowr ah oo ka dhacay wadanka Turkiga kaasi oo uu doonayay madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan inuu isugu keeno dhinacyada laakiin waxba sidaasi kama abuubin inkastoo dhinacyada la ishor keenay kulamadaasi sababo jiray awgood xilligaasi ay ugu horeysay xabadda culus ee socota iyo dhinacyada oo midkoodna uusan u diyaarsanayn in uu dagaalkaasi joojiyo Ukraine ay u arkaysay in gardarro iyo dulmi loogu soo duulay wadankeeda Turkiguna uu u arkayay in ay Ukraine taageerayso cadawga Ruushka oo reer galbeedka xilligaasi wax walba iyagu u baahdaan ay doonayaan in ay ka sameeyaan arintana markaasi waxa dabka ku sii shidayay in ay ka mid noqdaan NATO ay doonayaan taasi oo hooga iyo halaaga Ruushka ahayd haddii ay aqbali lahaayeen ama arintaasiyadii ay suurto gali lahayd si kastaba dagaalkan waa uu daba dheeraaday walina waxaad moodaa in aysan muuqanin wada uu ku soo gabagaboobi doono waxaana soo yaraanaya dhammaan wadooyinkii xalka loogu raadinayay iyo dhinacyadii ay ka suuroobaysay inay isu soo jiidaan ama isku soo dhaweeyaan dhinacyada kala duwan ee dagaalka uu ka dhaxeeyo si wax looga qabto xaaladda labadan dal iyo xiisadaha colaadeed ee marba marka ka dambaysa ka sii daraya maalinba maalinta ka dambaysana cabsida iyo halista dunidu ay soo kordhayso taasi oo ah in hubka waxgumaada la isticmaalo ama dagaal kaleeto oo dunidan dhexmara uu dhaco inkasta oo Ruushku uu u arko in isaga waxba loo reebanin mar haddii ay Ukraine kula dagaalayso hubkii NATO wadanka Turkiga xilligaas iyada ahayd inkasta oo NATO ay taageeraysay oo wadamada reer galbeedka Ingiriiska Mareykanka iyo kuwa kale taba ay si weyn ula jirsadeen dhinaca Ukraine haddana Erdogan ma uusan wax cadaawad iyo cuqdad midna u qabin madaxweyne Putin sababtuna waxay ahayd in uu u arkayay in mararka qaarkood oo kaleeto meelo halis ahaa oo u baahnaa uu kala soo baxay amaba ay dhici karaan waxyaabo muhiim ah oo dhinacyadani ay iska kaashan karaan waana mid keentay in Erdogan loo xagliyo dhinaca Putin oo mararka qaarkood oo kaleeto waliba lagu eedeynayay in uu NATO axdigeedii jabinayo mar haddii uu taageerayo Ruushka isaguna uu ku andacoonayo xilligaasi idinkuba Ukraine ayaa taageeraysaan laba wadan oo midna uusan NATO ku jirin inaad mid taageertaan oo hubkii NATO iyo wadamadii NATO aad siisaan waliba dhahdaan ciidamo NATO geenayna xageed idinku ka keenteen halkaas ayuu dhinac walba ku celinay intaasi oo dhan waxaan uga gol leenahay waa fahamkaasi guud laakiin qodobka aan u soconno barnaamijkeenan ayaa waxa uu yahay qodobkii ugu muhiimsanaa heshiis intay wadamada reer galbeedka iyo dhinac walba isku daya ay ku fashilmeen uu madaxweyne Erdogan go'aamiyay in sida ay dunidu rabto uu qodobkaas isaga isoo keligii ah uu ugu qanciyo labada dhinac gaar ahaan madaxweyne Putin uu arintaas iyada ka dhaadhiciyo oo uu aqbalay ayaa maanta haadaan ka duulay Ruushkuna uu sheegay inuusan aqbali doonin heshiiskaasi ay wada gaareen isaga iyo wadamada caalamku in uusan mar dambe aqbali doonin
heshiiska cidda la gaartay ee uu ka aqbalay ee ku qancisay ee uu yiri mar haddaad iga soo martay halkaas oo adiga la isoo kaa maray kama laabanayo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayay ahayd. waxaa loo sababaynayaa marka arrintan intaynaan faahfaahinin heshiiska in madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan kulankii Lithuania ka dhacay ee NATO ee Sweden ugu ogolaaday ku biirista NATO tan iyo maalmahaas iyo wixii ka horeeyayba waxaa soo baxay warar sheegaya in uu khilaaf soo kala dhex galay madaxweyne Vladimir Putin iyo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. inkastoo dhinacyadu aysan cadaynin haddana tallaabooyin dhowr ah oo dhacay ayaa waxa ay muujinayaan in labada mas'uul aysan sidii horeeto isku ahayn. waa qodobka koobaad ee Sweden oo uu ogolaaday oo markii horeeto ay ka diidanayeen wadamadani ama Turkiga uu diidanaa, Ruushna uu raalli ka ahaa oo wadada uu rabay ahayd arrintaas iyada. qodobka kaleeto waxa uu ahaa in NATO ay awood siiso Ukraine oo iyadana wada kaleeto hadda furantay oo la sheegay shirkaas in Turkiga laftiisu uu aqbalsan yahay arrintaas iyada oo wax dhibaato ah uusan u arkin. waxaa kaleeto oo iyadana jirta in madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan uu mar kaleeto diyaarado ka iibinayo ama ka iibiyay Ukraine. hore bay u jirtay arrintaasi oo wax caqabad ama dhibaato ama aysan ku haynin, laakiin hadda waa uu dhibsanayaa. sababtuna waxay tahay waa uu soo jilcay oo dagaalkan faraha badan ee muddada socday de wadanku muddo sanadaha dagaal ku jiro, dhibaatada inta la dunidii oo dhan la dagaalamaysa, dhaqaalihii lagala dagaalamayo, wax walba lagala dagaalamayo. arrimo la xiriira dhinaca dhaqaalaha iyaguna waa jiraan. isku dhicii nimankan calooshoodu shaqaystayaasha ee wadanka Ruushku uu taageeri jiray ee Putin iyo iyaga isugu dhaceen ayaa iyadana ka mid ahayd. adu qodobo dhowr ah iskuma aysan afgaranin, isfahamkuna waa uu soo yaraanayay muddooyinka u dambeeyay sida ay wararka qaarkood sheegayaan. haddaba warka hadda soo baxay ee weyn ee saameynta ku yeelanaya heshiis uu horay hormuud uga ahaa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa ay tahay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ruushka Maria Zakharova ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ee loo yaqaano ama loo soo gaabiya RIA in dalkeedu uu si rasmi ah ugu wargeliyay wadamada Turkiga, Ukraine, jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa in wadankeedu aanu kordhin doonin heshiiska dhoofinta qamadiga. waa arrin aad muhiim dunidan ugu ahayd. waxaa heshiiskan lagu wada saxiixday ka qayb galay Antonio Guterres, xogayaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo Vladimir Putin madaxweyne Vladimir Zelensky. saddexdoodaas ayaa arrinta aad uga shaqeeyay. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa gaar ahaan Antonio Guterres aad buu uga mahad celiyay xilligaas. Ukraine oo qamadigan la dhoofinayo lahayd lafteedu aad bay uga mahad celisay xilligaas. Putin laftiisu faa'iido ayuu ku qabay. waxaa kaleeto uu dhaafsanayay isfahamka iyo walaaltinimadii saaxiibtinimada markaas isaga iyo Putin Erdogan ka dhaxaysay. afhayeenka aqalka kriminalka Dmitry Peskov ayaa yiri heshiiska dhoofinta qamadiga ayaa joogsaday isla markaas shuruudaha la buuxiyo. dhinaca Ruushka ayaa isla markiiba ku soo laaban doona heshiiska. shuruudo hor leh oo adag maadaama ay arkeen dunidu inaysan iyaga wax naxariisa u falin. hadda waxay doonayaan qorshe hor leh, istiraatiijiyad hor leh iyo shuruudo hor leh in ay ka yeeshaan kulana xisaabtamaan wadamada caalamka midaas iyada ah laguna wada socdo. cidda hadda dunida ka soo sasabi doonta ama jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ka soo sasabi doonta ama ka soo sasabi doonta wadamada reer galbeedka iyo rabitaankooda waacide ilan Erdogan waa kan hadda xaaladda labadooda u dhaxaysa ay ka dayrinayaan dadka arrimaha diblomaasiyadda u dhuundaleela. waxaa kaleeto meesha ku jirta in arrintan ay soo socotana muujinaysay 2 maalmood ka hor Antonio Guterres oo weligii sidii uu dagaalku u bilowday aan teleefon kula hadlin Vladimir Putin ayaa teleefanka kula hadlay arrimaha dagaalkan iyo xaaladda iyo sida ay wax yihiinna uu kala hadlayay. waxyaabaha dadka qaarkood ay leeyihiin arrintan lafteeda ayaa ka mid ahayd oo uu dareensanaa sida ay xaaladdu noqon karto, isbeddelka xiisadan ku iman kara
iyo xasilooni darrada dhinaca cunnada ah ee dunida soo gaari karta haddii ay dhacdo midan iyada ah. waa caqabad iyo weliba xaalad hor leh oo ku soo korortay dunida.